السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال ميل ولبا دونيدا aad naga dheehanaysaan halkan waa Garaa TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo xiliyadan oo kale tan uga barateen qodobada maanta aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ergaga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo war ka soo saaray midnimada Soomaaliya madaxweyne gaas oo arin halis ku ah doorashada Puntland ku cadaadinaya mid kamid ah beelaha deegaanka maamulka Puntland si uu waqti kororsi u sameeyo wadooyinka magaalada Muqdisho intooda badan xiran iyo arin ka dambaysa oo la shaaciyay General Indaqarsho oo shaaciyay inay burburiyeen dooma ay lahaayeen xarakada al-shabaab iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo difaacay dawladda Sacuudi Carabiya qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoonayad ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka xiliyadan oo kale aad nooga barateen waa mar kale iyo Garaa TV وعنه وناكسن صاحب يلاين كهرين وكيل كجاركا قرمدا مدوبة وقابلسن أرمها الصومالية أي وحى أو ضبال كقاضي سيدا أو دونيو إنه إسبدل أجهر جلية صوماليا إسلام مركزنا وجشقيه من مدى ذلك الصوماليا نقلولس هيسوم waxa uu sheegay inuu leeyahay qorshe gaar ah oo sanadlaha isla markaasna uu doonayo inuu meesha kaga saaro khilaaf ka dhaxdasha asaga iyo dawladda Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu ka shaqeyn doono midnimada iyo xoojinta wada shaqeynta kala dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobe dawladda Soomaaliya ayuu sheegay inuu si gaar ah ula shaqeyn doono isla markaasna uu ka taageeri doono dhan walba asagoo ahmiyada koobaad sii doona midnimada Soomaaliyeed sidoo hadalka u dhigay oo sheegay inay tahay mid muqaddasa waxa uu sheegay asagoo ku sugan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya in qorshooyinkooda maalinlaha iyo sidoo kale midda sanadlaha oo ku xaqiijin doona midnimada iyo horumarka Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono danaha qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa sidoo kale uu sheegay in qaramada midoobe ay mowqifkeedu uu yahay in la taageero isbedel ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya wuxuuna sheegay in iminka isbedelkii uu ka muuqdo Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa intaasi ku daray inuu doonayo in xafiiskiisa si daahfuran uu la shaqeeyo dawladda Soomaaliya isla markaasna uu taageero dadaalada kala duwan ee quseeya arrimaha midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu dareenayo horumarka iyo ammaanka Soomaaliya ka haran qaaday isla markaasna uu bogaadinayo hadalka ka soo yeeray ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli dawladda Soomaaliya ay muddooyinkii dambe ku dadaalaysay sidii u horumarin lahayd arrimaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaasna ay saaxiibada ula noqon lahayd wadamada caalamka iyadoo dawladda Soomaaliya ay isku dayayso inay xalliso arrimaha dhibaatooyinka iyo khilaafyada ka jira gudaha dalka Soomaaliya oo aysan beesha caalamka wakiil aysan uga noqon waxaana sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobe inuu si gaar ah ula shaqeyn doono dawladda uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iminka talada haya madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa mid kamid ah beelaha deegaanka maamulka Puntland ku cadaadinaya inay soo istaag ku sameeyaan doorashada Puntland ka dhacaysa si uu waqti kororsi u helo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ee xilkiisa sii dhamaanayo Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa lagu soo waramayaa inuu isimada beesha dhul mahanti ee degta gobolada Sool iyo Sanaag uu ku cadaadinayo inay soo taagaan doorashada ka dhacaysa Puntland Gaas ayaa markii hore ka gooneed inuu sameeyo muddo kororsi waxaana iminka u arkaa fursad in odayaasha dhul mahanti ay soo taagaan doorashada ka dhacaysa Puntland ayna ku doodaan inaan doorashada Puntland la qaban iyadoo aan la xoreyn gobolada Sool iyo Sanaag sida la waraadiyo ku dhow madaxtooyada Puntland ay u sheegeen Garaa TV madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka qayb galay kulan ay yeesheen isimada Puntland waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ah madaxweyne ku-xigeenka Caamey waxaana isniintii ka dhacay madaxtooyada Puntland ee Garowe halkaas odayaasha dhaqanka ay madaxweyne Gaas ku cadaadiyay inay warbaahinta ka hadlaan ayna sheegaan inay gebi ahaanba qaadacaan doorashada Puntland
inaan la qaban karin ilaa la xoreeyo gobolada Sool iyo Sanaag gaar ahaan magaalada Laascaanood. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa la sheegay in odayaasha dhaqanka kala kulmay waji gabax isla markaasna odayaashu ay iska diideen inay warbaahinta ka hadlaan oo ay sheegaan in doorashada Puntland aan la qaban karin ilaa laga xoreeyo gobolada Sool iyo Sanaag ee maamulka Puntland muddo laga haystay isla markaasna ay Somaliland gacanta ku hayso. madaxweyne Gaas ayaa wuxuu iminka abaabulayaa oo doonaya in gabi ahaanba doorashada Puntland uu dib u dhac ku yimaado maadaama uu doonayo in booska sii jooga muddo isla markaasna uu muddo kororsi u helo. madaxweyne Gaas ayaa sidoo kale kol horeeta waxa abaabulay dagaalkii ka dhaxeeyay Puntland iyo Somaliland ee ku dhaxmaray jiidda horeeta Laascaanood kaasi oo uga dan lahaa sidii carqalad ugu keeni lahaa doorashada la filayo inay ka dhacdo Puntland isla markaasna laga qabto deegaanada Puntland. madaxweyne Gaas ayaa isagoo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka Puntland sida wararku sheegayaan, balse waxa uu rabaa inuu waqti kororsi ku helo si uu haddana ugu sii diyaar garoobo doorashada ka dhacaysa dowlad goboleedka Puntland. waxaana jira musharaxiin badan oo hore uga digay in madaxweyne Gaas uu doonayo in muddo kororsi uu sameeyo si xilka uu sii joogo. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Inde Qarsho ayaa waxa uu sheegay inay burburiyeen doomo ay lahaayeen xarakada Al-Shabaab. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Inde Qarsho waxa uu sheegay in howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ay ku burburiyeen doomo ay isticmaalayeen xarakada Al-Shabaab. waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay mar waliba isku dayayeen inay dhibaateeyaan dadka shacabka iyo ciidamada xoogga dalka, arrintaas oo ay soo horjoogsadeen dadka ku sugan deegaanadaas oo habeen iyo maalinba ciidamada amniga la socodsiinayay waxyaabaha dhibaatada ku ah. General Inde Qarsho ayaa sheegay in howlgalka kaliya ee ay ka sameeyeen deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe ay ku burburiyeen doomo xarakada Al-Shabaab ay u adeegsan jireen inay adeegyada uga qaataan magaalo xeebeedyada isla markaasna ay ku fuliyaan weerar qorsheysan sidoo hadalka u dhigay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Inde Qarsho. General Inde Qarsho taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalladu ay sidoo kale ka sameeyeen gobolada Shabeellada Hoose iyo Hiiraan, waxaana sheegay intooda badan ay ahaayeen kuwa lagu doonayo in xarakada Al-Shabaab deegaanadaasi loogu xoreeyo sidoo hadalka u dhigay. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay marka laga rameeyo doomo burburiyeen ay sidoo kale dileen iyo sidoo kale ay qabsadeen gaadiid iyo sidoo kale waxyaabo kale oo xarakada Al-Shabaab ay lahaayeen sidoo hadalka u dhigay ninka taliyaha ka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Inde Qarsho. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe laba jibaarayay howlgallada ka dhanka xarakada Al-Shabaab, waxayna ciidamadu ku guuleysteen inay isku furaan wadooyin go'naa isla markaasna xarakada Al-Shabaab ay jareen oo muhiim u ahaa isku socodka bulshada ku sugan gobolada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo gobolka Hiiraan. ma jiro cid ka madax bannaan taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo xaqiijisay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay burburiyeen doomo ay lahaayeen xarakada Al-Shabaab iyo inay qabteen waxyaabo kale oo iska lahaayeen xarakada Al-Shabaab sida gaadiid iyo hub sida uu sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Inde Qarsho. wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta intooda badan xiran iyadoona arrinta ka dambaysa la shaaciyay. wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta xiran iyadoo loo diiday inay adeegsadaan gaadiidka dadka shacabka isla markaasna iskaga kala gudbaan iskoosyada magaalada Muqdisho qaarkood. iskoosyada Banaadir Soobe Taleex kiiloomitir 4 iyo shaqaalaha iyo kuwa kale ayaa xiran, waxaana ku sugan ciidamada amniga dowladda Soomaaliya kuwaasoo dad goobjoogayaal ay sheegeen inay u diideen inay iskaga kala gudbaan iskoosyadaasi. gaadiidka rayidka ayaa loo diiday dhammaanba inay iskoosyadaasi jaraan isla markaasna ay gudbaan iyadoo kaliya loo ogol yahay gaadiidka ay wataan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo la xiriirna waxay sheegeen in sababta loo xiray aysan ogeyn, balse waxa ay sheegeen inay ka yimaadeen amarada wadooyinkaas lagu xiray taliska sare ee ciidamada xoogga dalka.
warar hoose oo aynala ayaa sheegayaan maanta magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ay soo gaarayaan wasiiro ka tirsan qaaradda Afrika wasiiradeeda isla markaasna ay kamid yihiin wadamada Itoobiya iyo Eritrea waxaana ay kula qaadan doonaan magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeysa wasaaradda arrimaha dibadda dalkeena mudooyinkii dambe magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa waxa ku soo qulqulaya wafuud heer caalami ah waxaana iminka Soomaaliya u muuqataa inay ka soo kabanayso dhibaatooyin in badan soo ragaadiyay dawladda Soomaaliya waxay sheegaysaa inay ku dadaalayso sidii wadamada caalamka ay wada shaqayn fiican u la yeelan lahayd isla markaasna ay Soomaaliya uga gadi lahayd wadamada caalamka in amaankeedu yahay mid la isku haleyn karo xoghaas oo yeeshay Garaa TV ayaa muujinaysa in siyaasiga Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu bedelayo mowqifkiisii kaga aadanaa dagaalka uu kula jiro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasna uu kala hadlo sidii uu u taageeri lahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khilaafka labada mas'uul ayaa gaaray heerkii ugu sareeyay waxa uu bilowday kadib markii ra'iisul wasaarihi hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu ku dhiiraday inuu qalqaliyo dawladda uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee hadda jirta asagoo adeegsanaya dhaqaale xoogan oo ay bixinayaan xisbiyo mucaarada dhowr jeer waxqaradka maamulka Puntland ayaa isku dayay inay xaliyaan khilaafka labada mas'uul waxaana ka biyadiilay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya ujeedka ayaa in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu doonayo inuu la heshiiyo madaxweyne Farmaajo ayaa ila wareediyo waxay ku sheegeen in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu doonayo inuu qabto xilka madaxtinimada maamulka Puntland si uu taageero uga helo madaxweynaha Soomaaliyana uu iminka qorsheynayo inuu la heshiiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda Soomaaliya waxaana mudooyinkii dambe ahaa mid dhaliilaya siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sii kordhaya qulqulka ajaanibta ku soo qulqulaya gudaha dalka Soomaaliya waxaana la soo wariyay in tirada iminka ajaanibta gudaha dalka Soomaaliya soo galaysa ay tahay kuwa xadaaf oo aan tiro lahayn gamiyo ku-xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey ayaa dabool ka qaaday inay korortay tirada ajaanibta dalka Soomaaliya soo garaysa gaar ahaan deegaanada Puntland Camey oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la lumiyay tiradii diiwaangelinta ajaanibta maadaama uu sheegay in qulqulka ajaanibta iminka ay tiro ahaanba ay xadaafeen isla markaasna aysan suurtagal ahayn in si fudud loo diiwaangeliyo hal sano gudaheed waxa uu sheegay Camey in deegaanada Puntland ay yimaadeen tiro ajaanib oo aad u badan taasina ay ka dhigayso in ajaanibta gudaha Puntland soo galaysa ay ka tiro bartaan dadka u dhashay Puntland ee xaq u leh inay deegaanada Puntland ka ganacsadaan kana shaqeystaan hogaamiye ku-xigeenka Puntland Camey oo ka duulaya ajaanibta soo galaysa gudaha Puntland ayaa hay'adaha amniga waxa uu amray inay qabsadaan shaqooyinkooda oo ay si dhab ah uga howlgalaan si ay u kala saari lahaayeen dadka sharciyeysan iyo kuwa sharci darrada ku jooga deegaanada Puntland nuqul ka mid ah hadalka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ahaa ma jiro wadan la iska gala isla markaasna sidii la doono laga yeelo waxaa qasab ku noqotay dawladda inay kontaroosho qaxootiga soo galootiga ee Puntland soo galaya wixii horeetay waxay ahayd abacsanaan ka jirta dhanka Puntland balse iminka ayaan u soo jeesanaynaa sidaan wax uga qaban lahayn ajaanibka ku soo qulqulaya gudaha Puntland ayuu yiri Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland wali waxaa daawanaysan wararka Garaa TV iminka magaalada Baydhabo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Shariif Sheekuna ayaa magacaabay 15 xildhibaan oo magacaabay inay noqdaan guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya magacaabista guddiga doorashooyinka ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayuu gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida tan ku sheegay kadib markuu arkay qodobka 65 ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu dhageystay soo jeedinta golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya
wuxuu magacaabay guddiga doorashooyinka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka kooban 15 xildhibaan. Koow xildhibaan Aadan Xasan Maxamed, labo xildhibaan Roble Sheekh Xasan, saddex xildhibaan Muxyidiin Xaaji Cadow, afar xildhibaan Xasan Cabdi Maxamed, shan xildhibaan Xasan Xuseen Maxamed, lix xildhibaan Ibraahim Cismaan Madoobe, toddoba xildhibaan Faadumo Cabdiraxmaan Maxamed, sideed xildhibaan Nuurta Maxamed Cabdi, sagaal xildhibaan Ibraahim Cabdulle Cabdi, toban xildhibaan Axmed Maxamed Cabdi, 11 xildhibaan Cabdinaasir Cabdi Canshuur, 12 xildhibaan Sitey Maxamed Abu, 13 xildhibaan Aaba Abu Yuusuf, 14 xildhibaan Axmed Maxamed Barre, 15 xildhibaan Suldaan Maxamuud. waxaana xildhibaanadan loo magacaabay inay noqdaan guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, kaas oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya soo dooran doona isla markaasna isku dibaridi doona arrimaha doorashooyinka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa guulo ka sheegtay inay ka gaareen howlgallo ay ka sameeyeen caasimadda maamulka Puntland ee Garowe kadib markii dadka shacabka ee magaalada Garowe ay cabasho xoogan ciidamada amniga u soo gudbiyeen. ciidamada booliska magaalada Garowe ayaa kordhiyay howlgallada amniga lagu xaqiijinayo taasi oo ka dhalatay amni darro baahsan oo magaalada soo food saartay muddooyinkii dambeeyay. xarumaha saldhigyada magaalada Garowe ayaa waxaa ashtakada ugu badan ay ka imaanaysa dadka shacabka, waxayna ka cabanayeen burcatuuriyo wato oo dhac iyo boob u geysta isla markaasna dadka dila magaalada caasimadda u ah maamul goboleedka Puntland ee Garowe. siyaha xilka taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal General Muxyidiin Axmed Muuse ayaa saxaafadda la hadlay wuxuuna sheegay inay guulo ka gaareen xaqiijinta nabadgelyada iyo xoojinta ammaanka guud ee gobolka Nugaal sidoo hadalka u dhigay. General Muxyidiin ayaa hoosta ka xariiqay inay dardar geliyeen sugitaanka amniga isla markaasna ay la dagaalameen dhalinyaro uu sheegay in qas iyo dhibaato ay ku hayeen dadka shacabka ee ku sugan caasimadda Puntland ee Garowe. xaafadaha magaalada Garowe ayaa intooda badan waxaa ka dhaca moobeelada iyo sidoo kale lacagaha jawaabka lagu qaato iyadoo ay falkaasi geysanayaan dhalinyaro tuuriyo ku hubeysan kuwaas oo dadka shacabka dhacaya halka qaarkoodna haday diidaan ay suurtagal tahay inay dil u geystaan sida ay sheegeen dadka shacabka ee ku sugan magaalada Garowe. balse taliska maamulka Puntland ee ciidamada booliska waxay hadda sheegayaan inay qabteen dhalinyaro badan oo arrimahaasi ku eedeysan inay ku lug lahaayeen. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa difaacay boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana ka hor yimid cadaadis xooggan oo ay la kulmayso Sacuudi Carabiya taasoo ay dunidu ay saarayso. madaxweyne Trump ayaa cambaariyay cadaadiska sii kordhaya ee dunidu ku haysa boqortooyada Sacuudiga ee ku saabsan suxufiga la meel uu jaaniyo cirib dhigay kadib markii uu galay qunsuliyadda wadanka Sacuudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul isla markaasna la sheegay in laga cabsi qabo inay Sacuudigu qarajiyeen. waxa uu madaxweynaha Mareykanku sheegay in eedaha loo jeediyo boqortooyada Sacuudiga Carabiya ay yihiin kuwa aan xaqiiqo loo ahayn isla markaasna dadka arrintaasi wada ay yihiin kuwa doonaya inay qirasho been abuur u sameeyaan boqortooyada Sacuudi Carabiya inay arrintaas iyadu ka dambeysay. madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu sheegay inuu socdo baaritaano buuxa oo lagu sameynayo maqnaashaha saxafigaasi Sacuudiga u dhashay ee Jamaal ee lagu lahaa magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. ninkan saxafiga ayaa waxa si weyn u dhaliili jiray qoyska boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana laga shaki qabaa inay soo maleegeen shirqo lagu qarajinayo isla markaasna lagu dilay sida ay sheegeen sirdoonka wadanka Turkiga. Trump ayaa sheegay in dhaxal suguhu uu tafiray inuu wax luga ku lahaa dhacdadaani ka dhacday gudaha qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ee magaalada Istanbul 2 toddobaad ka hor. saxafiga ayaa 2 toddobaad ka hor garay dhismaha qunsuliyadda balse xilligaasi wixii ka dambeeyay waa la waayay meel uu jaaniyo cirib dhigay. dadka wax taxliiliyana waxa ay sheegeen arrintaasi ay ka dambeeyeen in suxufigaasi la dilo sirdoonka Sacuudi Carabiya oo soo maleegay dhaxal sugaha wadankaasi Maxamed bin Salmaan. marsi uu raysana madaxweyne Trump waxa uu sheegay in laga yaabo in maqnaashaha saxafigaasi ay ku lug leeyihiin dad ugu yeeray inay yihiin dhagar qabayaal isla markaasna doonaya
inay dhibaato xoogan gaarsiiyaan sumcadda wadanka Sacuudi Carabiya sidoo hadalka u dhigay Donald Trump. muddooyinkii dambe waxaa sii kordhayay cadaadiska xoogan ee lagu hayo xukuumadda Sacuudi Carabiya kadib markii la waayay suxufiga sida weyn u dhaliili jiray Jamaal kaasi oo lagu waayay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee cariga Turkiga. wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka waad xilligan nagala socoteen isla markaasna aad ka daawanayseen Garaa TV waynaga intaan ku kulmi doono warkan warxiga haduu eebaweyn oo raali ka yahay waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. haddii aad doonayseen saacad walba iyo daqiiqad walba aad hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo dunida isla markaasna aad hesho macluumaad dheeriya xusuusna inaad channelkan subscribe dhacdo hadduu eebaweyn oo raali ka noqdana waad heli doontaan macluumaadka aad u baahan tihiin.